النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه اللي عرمود هذا يبلن قادان وحاندين ضمانة قادا يا تشنو لح عرمود هذا ضمانة قادان ونفتينا أكد ضمانة قادان أضمن لكم الجنة جنة يا إذن ضمانة قادا اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم لحدا عرمودي وحويان وحايد ضمانة قادان هذا شيكين إيسان إنا رونكو شيكيسان أو أين بيانكو شيكين هذا بلن قادان بلن كإنا الأوفيسان هذا أمانة قادان أمانة دي إنا قدتان والصدح فرجينا إنا زنادة كحفظي صعب إنه إننا اللابتان وحمان أين نكفيرين قعمه إننا اللابتان وحن أين نكسمين لحدا الرموت هذا إيه ضمان قادان أضمن لكم الجنة جنة أي إذن ضمان قادان وغفان زنيسن وغفان إنه سدن بشيء عن كو إيجن هوين أجنبي ما إيجا هيو وحن لفيريا يحنتا ما إيجا هيو إنه سواء إلاليا فرجي سنة زندو كإلاليا قعنتي سنة قف حمان كما قارت حمان وما دقاقه حمان كما سمعيه قفنا دباتكم ما قارتي هادو شاكينا يوارون لو هدي أمانة لو ديبا وقدنيا هادو بلن قادة وأوفنيا قفك نوع عاصة أو تلمامها سياشي نبي الله محمد وحوليه صلى الله عليه وسلم أنا جنة الضمان قادة ولذلك رنت يقيمها إلا ضعي وحيرا هذا أهل العلم يقول حقيقة الرنت وحويان أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب إن رن شيكتي مال الله ضحي الله إليه ما أنت وحى بينها ينكبت بهذا الميس أرنت هذا رن كشيكتي وأقول مات مركب وأنا بين شيكتا سيعد بدبادي مالين كسيدا سايكو صوم مرتو قفك كودي ردا إنه رن شيغو قفكاسي waa qofka guuleystay weeyaan mowqif baad adag ayaa ku soo maray oo cabsi iyo naxdin leh waxaad la ogtahay oo istiri oo iska dhaadhicisay maantay waxa ku badbaadi kartaa waa been markaas beenti inta xagga iska dhigtay baa run sheegtay waxaana aaminsantaa runta sheegaysid ina khatar galaysid runtii ayaa dooratay قفكاسي وقفك الصدق حقيقة دي سنبتها اللي يمدوي وأنا قصة كعب بن مالك مركو غزوة دي كهرة تبوك أصدقوا إلهي أفضل ديي هانتدي دي مالك دي هايستا دولان كاس وكهرة نبي مركو صلى عبطي قلقل يعبسي أي تمد هيا مالك إساقع ضدك وحي الشيغان بين اليال بنقضين سيدتن يا دور قف او منافقين ايا النبي قلت قف ولي بوحو شيكتا عذر دار وانا بين نبي وانا اسك عفيي الهينا الدم داف بو ويديي ارنتودنا way aamust كعب بن مالك يا لبديسي صاحب markii كعب nabigu weydiiyay wuxuu yiri rasuulka ilaahayo mowqifkan aan ku hortaaganahay been ayaan sheegi karaa sida been loo sheegana khabiir baan ku ahay hortaadana waa dhici kartaa inaan ka fakado oo aad ilaahay damdaaf ii weydiisid xaalkaygana aan kuu sheegaa iska aqbash laakiin waxaan ogahay oo is aaminsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan been loo sheegi karin in arrinkaani uu fashilmi karo xag alle waxaan doortay run ayaan doortay runtii ayuu sheegay runtaas uu sheegay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan soo dejiyey
kuwii runta beenta sheegayna arrintoodii lagu fadeexaynayo asagana runtii uu sheegay looga toobad aqbalahayo ilaa qiyaami saacana la akhrinayo markaasuu wuxuu yidhi markii ilaahay ka toobad aqbalay yaa rasuul allah innamaa anjaaniya allaahu bisidq ilaahay rasuulkiisiiyow waxaan ku badbaado ilaahay igu badbaadiyey runta wa inna min tawbatii anlaa uxaditha ilaa sidqan maa baqitu toobadaydana shuruuddeeda waxaa iiga mid ah inta aan noolahay oo cimrigayga ka baaqi ah inaanan been sheegin shardigaasaan toobadayda ku xidhahay markaasuu wuxuu ahaa noloshiisii dambe asagoo inuu run la nool yahay wiilkiisii asagoo indhabeelay oo da' noqday ayaa wiilkiisii oo gacanta haya ayuu qisada mar labaad ugu soo celiyo u sheegay markaasuu wuxuu yidhi maalintii laga bilaabo nebiga hortiisa aan ka idhi ilaahay run buu igu badbaadiyey ballan waxaa igu ah noloshayda inaanan been sheegin laga soo bilaabo waagaas ilaa maanta oo aan indhabeelay hal mar been ma aana sheegin cimrigayga inta ka baaqi ahna ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu ii xifdiyo oo aana beenlow noqon mowqifkaas ka istaag sidqiga iyo runta lisaankaaga iyo carabkaaga ka run sheeg walidaalika bay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen alsidqu waalikhlaasu aslu kulli khayr runta iyo ikhlaaska iyo daacadnimada ilaahay dartiis loo khaalis yeelo acmaasha labadaasi waa khayr oo dhan asalkiisa weey qof aan beenlow allah khayra fiih wax khayra ma qof camalkiisa riyaa iyo istusus uu ku jirana khayr ma leh asalkaaga waxaa la rabaa inaad la noolaatid ikhlaas iyo run inaad la noolaatid ibnu xibbaan wuxuu leeyahay raximahu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala carabka xibnaha kale ilaahay waa ka fadila darajo dheeraadahana ilaahay siiyey waxaana ilaahay uu ku fadilay bian andaqahu bitawxiidi inuu ka dhigay xibintaa carabka ah mid ku dhawaaqda tawxiidkiisa oo laa ilaaha ila allaahu meesha looga dhawaaqaya waa lisaanka fadiiladaasuu carabku dheer yahay xibnaha kale markaasuu wuxuu leeyahay falaa yajibu lilcaaqil ay falaa yanbagii lilcaaqil qof caqli leh uma habboona munaasabna uma aha an yucawida aalatan khalaqaha allahu linnutqi bitawxiidihi bilkadib inuu u isticmaalo aaladdii ilaahay u abuuray tawxiidkiisa inay ku dhawaaqdo inuu been u isticmaalo uma habboona maxaa yeelay meeshaan waa meesha aad oga dhawaaqday laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah lisaankii aad qur'aanka ku akhrinaysay oo ilaahay aad ku waxidaysay oo ilaahay aad ku xusaysay haddii been aad u isticmaasho ka war looma abuurin ka daa waa ku hoogaysaa ee ka jooji walaalayaal sidqiga iyo runta beeca haddaad ka run sheegto ilaahay waa ku barakaynaya nebigu wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa fain sadaqa wabayana buurika lahumaa fii baycihima labada wax kala gadanayaa hadday ka run sheegaan beeca oo ceebta ku jirta ay muujiyaan oo aysan qarin oo ay caddeeyaan wuxuu ceeb leeyahay buurika lahumaa fii baycihimaa beecooda ilaahay waa u barakaynaya wain katama wakadaba muxiqat barakatu baycihimaa hadday qariyaan ceebta oo ka been sheegaan ilaahay beecaas ay ku kala gateen barakadiisa ilaahay waa tirtiraya waa baabi'inaya ilaahay wax badan oo beec iyo ganacsi ah waxaa loogu khasaaraa oo aan loogu faa'idin oo loogu hogo ba'a waxa weeye ceeb ayaa qarsoon qofka iskale una sheegahay markaasuu leeyahay haddaan sheego ka faa'idi mahayo maxaan ka dheefaya haddaan sheego leega gadan mahayo sheegidda aad sheegtid baa ilaahay faraj kuugu furaya mid runtaada kugu qaata ayaad helaysaa
maalintii talaadada ayaa laba nin isoo waceen way is haystaan gaari bay kala gateen gaarigii waxaa ku soo baxay ceeb kii gaariga lahaa ayaa lagu laabtoo leeyay gaarigan ceebtaan u leeyay waadna noo qarisay ee ceeb qarsoomi karta maynan ahayn markaasuu wuxuu yidhi oo haddaanan kuu qariyeen miyaa iga gadan lahayd waa sax waan ku ogaa ceebta waana kuu qariyey inuu ii gadmaan rabay anugu ilaa haada alxad ayay beentu gaartay in wax lagu kala gato ceebtii asagoo qofku og inuusan sheegahay oo qarinayo waa musiibo khatar weyn runta la noolow ilmahaaga run kula noolow ahalkaaga run kula noolow saaxiibadaa run kula noolow ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kuu diray runtooda laga helo waxaa la yidhaha sidqu lqalbi biliimaani taxqiiqan qalbiga oo laga run sheegaa waa inaad si dhaba u rumaysid wixii lagu amray inaad rumaysid wa sidqu niyati fi lacmaal acmaasha aad ka samaynaysay xibnaha waa inaad uga run sheegtaa ikhlaas oo ikhlaas aad uga run sheegtaa wa sidqu lafdi fi lisaan lafdiga aad ku hadlaysid carabka waa inaad uga run sheegtaa oo aadan been ka sheegin haddii marka acmaasha aad samaynaysaa run ay tahay oo ka run sheegtid qalbigaaga waxaa ka ictiqaadinaysay aad ka run sheegtid lisaankaaga waxaa ka soo baxaya aad ka run sheegtid adduunya aakhira waa liibaanaysaa saadiqiintaas ilaahay oo jannada u ballan qaadaan ilaahay kugu daray ilaahay haynagu daray waxaa ka soo horjeeda runta kadib iyo been baa ka soo horjeeda insha allahu mar kale aan qaadan doonaa allahuma rabbana aatina fi dunya xasana في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين